halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo bartana internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa subax khamiisa 14 bisha September sanada 2017. arrimahan barnaamijka saaka idinkugu haynana waxaa kamid ah dhowr iyo 20 qof oo arday u badan oo ku dhintay dab ka kacay madraso ku taal magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Soomaaliya oo xubin buuxda ka noqotay hay'adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay. dood badan kadib iyo dhacdooyin badan oo soo qaadanay Soomaaliya sida diyaar u tahay ayaa waxa la isku raacay in la ansixiyo Soomaaliya xubin ay ka noqoto. hay'adda Soomaaliya haweenka Soomaaliyeed oo aad uga dhex muuqda bandhiga buugaagta ee Muqdisho. gabar ayaaba buug ka qortay arrimaha buufiska. haddaba ujeedka ay buugan u qortay muxuu ahaa? ujeedadayda ugu talagalay ayaa ah inay dadku ogaadaan dadka xaaladda buufiska uu ku dhaco siday u egyihiin qaab nololeedkooda waxa la soo kulma. waa tahay qodobadaasi kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo soo saartay Farduusa Maxamed Cilmi anigoo Cabdifataax Ibraahim Caga yarna in la socodsiinayo balse marka hore sida caadada ahayd barnaamijka waxaanu ku bilaabeynaa qodobada wararka caalamka ugu door karoon Xasan Deeq Cabdullaahi Haybe. maasan Cabdifataax dab qabsaday madrasa jiifle oo ku taala Malaysia ay ku dhinteen ugu yaraan 25 ruux dhammaantoodna arday ayay ahaayeen marka laga reebo 2 ruux. saraakiishu waxay sheegeen in dabku ka kacay qaybta jiifka ee iskuulka oo ku yaala magaalada caasimadda ee Kuala Lumpur subaxnimadii hore ee Khamiista. baaritaan ayaa lagu hayaa waxa dhaliyay dabka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kulan la qaatay 2 xubnood ee ugu sareeya Koongareeska xisbiga dimuqraadiga si ay u falanqeeyaan waxyaabaha xasaasiga ee labada dhinac oo ku wada casheeya aqalka cad ee looga arrimiya Mareykankuna waxa ay isla qireen inuu ahaa kulan waxtar leh. Jack Schumer iyo Nancy Pelosi ayaa sheegay inay isku afgarteen in Donald Trump ay kala shaqeeyaan ammaanka xadka. waxay sheegeen in arrimaha ay ka wada hadleen ay ka mid ahayd ilaalinta daayarta soo galootiga, laakiin waxyaabaha ay ka wada hadleen kama aysan mid ahayn darbiga xadka Mexico. Martin Shkreli oo horey madax uga soo noqday shirkadda dawooyinka samaysa ayaa lagu xiray dalka Mareykanka kadib markii uu garsoore ku helay in uu bulshada halis ku yahay. Martin ayaa $5,000 u ballan qaaday qof kasta oo u keena tinta Hillary Clinton. warbaahinta Mareykanka ayaa Shkreli u magacawday ninka loogu necab yahay Mareykanka kadib markii ay shirkadiisu qaaliyeysay dawo nolol badbaadin loo adeegsado. koox khubaro caafimaad ayaa sheegay in farqiga caafimaadka ee u dhexeeya qaaradda Afrika iyo qaybaha kale ee dunida la soo yareyn karo jiil gudihii. warbixinta ayaa lagu sheegay in da'yartu ay kaalin muhiim ah ku leeyihiin isbedelada asaasiga ee habnololeedka Afrika oo ay ka mid tahay ka hortagidda sigaar cabidda. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay waajib tahay in Myanmar ay joojiso howlgallada militariga ee horseeday in ay dalkaasi isaga cararaan qowmiyadda muslimiinta ee Rohingya, isagoo ku tilmaamay sirsifayn. Antonio Guterres ayaa ka digay in dhibaatadan ay ammaan xumo u keensanayso gobolka. sanadka gobolka Florida ee dalka Mareykanka ayaa waxaan cudurdaar loo yeeri karin ku tilmaamay 8 ruux oo ku dhimatay guri dadka waaweyn lagu xanaaneeyo oo ay ku dhufatay duufaanta Irma. Bill Nelson ayaa sheegay in dadkaas in la badbaadiyo ay ahayd. warkii dunidana waa naga intaas Cabdifataax. aad ayaad u mahadsantahay Xasan Deeq Cabdullaahi Haybe ayuu kaasi nala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ugu door karoon. halkaad kala socotaana waa BBC dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. waa tahay aanu ku bilownay sida aad warkaba ku maqlayseen dab ka kacay qaybta jiifka ee madraso ku taal magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayaa waxa uu dilay dhowr iyo 20 qof oo u badan ardaydii iskuulkaasi dhiganaysay. mas'uuliyiinta wadankaasi ayaa waxay sheegayaan in dabkan uu yahay midkii ugu xumaa ee dalkaas ka kaca muddo 20 sano. haddaba faafahinta warkan waxaa soo akhriyay oo haatan studio ugula soo biiray Faarax Lamaane. Faarax bal marka hore faafahinta warkan ina si
cagayar iskuulkan waxaa la yidhaahdaa taxfiid daarulqur'aan itifaaqiya saacadihii hore ee wadanka maleesiya saacadiisa ayuu dab ku kacay ilaa iyo 23 arday ayaa ku dhintay sida uu sheegay khayrudiin drama oo ka tirsan qaybta debdemiska waxaa kaloo ku dhintay 2 qof oo shaqaalihii iskuulka ah waxaana la sheegayaa in ay jiraan sidoo kale sawirro la isla dhex marayo baraha bulshada ay ku wada sheekaystaan internetka oo muujinaya qol weyn oo dabaqa sare ku yaala oo dhammaantiis dab uu ka baxayay intii aysan imaanin qolyaha debdemiska waana meesha caruurtu ay seexdaan waata marka faaraxow ma la shaaciyey da'da ardaydan meesha ku dhintay intay kala yihiin da'dooda rasmiga ah lama sheegin laakiin waxaa la leeyahay inta badan caruurtaas iskuullada ama madrasooyinka loo qaato la seexiyo weliba waxaa weeye da'dooda inay u dhexayso 5 jir ilaa iyo 18 jir waa tahay marka dhibaato baa meesha ka dhacday ardaydan waxay u muuqanayeen kuwa aad u daayar ma la sheegay qaabka loogu gurmaday maamulku waxa uu sheegay in qolyaha debdemiska ay isla markiiba tageen daqiiqada ay ku tageen laakiin baktiinta dabka ay ku qaadatay muddo saacad ah waxaana maamulayaasha Malaysia ay walwal weyn ka qabaan ayaa la leeyahay badqabka madrasooyinka aan la diiwaan gelinin oo arintaas ay doonayaan in wixii hadda ka dambeeya la diiwaan geliyo baaritaan ayaana socda lagu ogaanayo bal sidii dabkan uu ku kacay iyo dhibaatada uu geystay waa tahay aad ayaad u mahadsan tahay faarax lamaana ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay faahfaahinta ku saabsan dab ka kacay qaybta jiifka ee madraso ku taal magaalada Kuala Lumpur ee caasimada wadanka Malaysia halkaas oo ay ku dhinteen arday aad u tiro badan faahfaahin hadii ay warbixinadaasi ka soo kordhaan idaacadaha iyaga dambe ayaad ku maqli doontaan balse markan isbedelka dhinacyada badan ee Soomaaliya ku talaabsatay sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxa uu aqoonsaday dalalka kale ee caalamka taasina waxa ay horseeday in Soomaaliya loo ogolaado inay xubin buuxda ka noqoto hay'adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay ogolaanshahan oo lagu meelmariyay shirweyne wasiirada dalalka xubnaha ka hay'adaasi ay ku leeyihiin wadanka Shiinaha ayaa waxa Soomaaliya ku matalayay wafdi uu kamid yahay Yaasir Maxamed Baafo oo la taliyaha arrimaha dalxiiska ee wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska ee Soomaaliya waxa uu waramay wariyaha BBC-da Bashiir Maxamed Caati shirku wuxuu ku saabsan yahay waa shirweyno labadii sanaba hal mar dhaca oo looga arinsado arrimaha dalxiiska adduunka ajandaha miiska saaran oo looga hadlay sanadkan Soomaaliya kamid ahayd waxay ahayd shaqo badan oo soo socotay gunaanadkeedii maanta aan maaragtay shirkan kaga qayb qaadan Soomaaliya marka laga hadlayo dhanka dalxiiska maxaad la shirtagteen shirkan ma ahayn shir Soomaaliya ay kaga warbixinayso Soomaaliya xaaladeedii shir waxa ka horeeyay Madrid aan kula kulannay June sanadkan wasiirka warfaafinta dhaqanka dalxiiska aniga aan kaga qayb galnay shir taxano ahaa kan wuxuu ahaa mid lagu ansixinayay Soomaaliya xubinnimada ay ku codsatay inay ku biirto hay'adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay maxaad kala kulantay marka shir caalami ahaa heer wasiiro ahaa aniga wasiirka inaan ka soo qayb galno xaalada jira awgeed ayaan suurtagali weysay anigoo dawladda matalayay si heer sare loo soo dhaweeyay aan naga qayb qaadanay wasiiro waxaa joogay wadamada Afrika oo dhan waxaana xubin ka ah 51 dal oo Afrika ah marka laga reebo koonfurta Suudaan iyo Soomaaliya inta kale xubin ay ka yihiin maanta qaybta hore waxa looga hadlay Soomaaliya sida ugu beeri lahayd dood badan kadib iyo dhacdooyin badan oo soo qaadanay Soomaaliya sida diyaar u tahay ayaa waxaa la isku raacay in la ansixiyo Soomaaliya xubin ay ka noqoto qaybtiisa labaad waxaa loo gudbay in la horgeeyo wasiirada adduunka oo ka soo 154 dal wasiiro ka socda yimid oo Sacuudiga ka mid yihiin Suudaan iyo wadamo waaweyn ka mid yihiin ayaa meesha waxaa haddana cod loo qaaday Soomaaliya inay xubin ka noqoto la yiri Soomaaliya waa ku soo dhaweynaynaa waana ka mid noqon kartaa taas ayayna noqotay in Soomaaliya maanta taariikhda ay ka gasho hay'adda dalxiiska adduunka qaramada midoobay markii ugu horeysay Soomaaliya ka mid noqoto hadiiba Soomaaliya markii ugu horeysay taariikhda ay ka mid noqotay hay'adda dalxiiska adduunka maxay tahay waxyaabaha dadka ku soo jeedinaysaan wallahi macnaheedu ma aha haddaan dalxiis ku biirnay hay'adda dalxiiska ku biirnay bari waa loo soo dalxiis tagay Soomaaliya ma aha waxay u baahan tahay shaqo badan qorshe badan ay u baahan tahay cilmi badan ay u baahan tahay waxaana ka horeeyay dadka inay fahmaan qiimaha uu leeyahay dalxiiska inay soo dhaweeyaan inaan aragno guud ahaan dalkeena ay khayraadku leeyna u dalxiis midda kale ma ahan ujeedadeena in dalxiis ajnabi ay yimaadaan dalka Soomaaliya dadka Soomaaliyada waxa muddo inay ka indhaxiran yihiin khayraadka dalka gudihiisa ku haysan waxa jir la yiraahdo domestic tourism waxa la jirta taasaan rabnaa xoog saarno maanta qofka joohar joogna uu dalxiis tagi karo galkacyo joogo dalxiis tagi karo maaragtay Baydhabo iyo dalka intiisa kale oo dhan oo dhulka khayraadka haysan oo dalxiis waxa intaas ku sii dheer Soomaalida dibadda ku nool markay yimaadaan inay ayagana fursad u helaan inay booqan kan meelaha dabiiciga Ilaahay noogu deeqay aan haysan khayraadka idinku maxaad ka qorshaysan inaad ka qabataan waaxda dalxiiska ee Soomaaliya
dowladda Soomaaliya ahaan waxa u qorshaysan in horta aan diyaar qorshihii lagu howlgeli lahaa iyo in la xoojiyo waaxyada wasaaradda maaragtay dalxiiska in la xoojiyo taas ayaan shaqadaas kadib ayaa waxa soo baxay shuruucdii iyo nidaamkii dalka lagu hagi lahaa dalxiiska iyadoo wasaarado badan iyo hay'ado badan ay ka qayb qaadan doonaan shuruucdaas markii la ansixiyo kadib ayay noqon doontaa Soomaaliya inay maaragtay iyadoo sharci dalxiis leh loo dalxiis tabaad ilaahay yaasir maxamed baafo taliyaha arrimaha dalxiiska ee wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska ee Soomaaliya ayuu kaasi ahaa uu waramayay wariyahayaga Bashiir Maxamed Caad hadaba Facebook ay dhageysan badan raayigooda kaga soo dhibteen Maxamed Cawil Axmed oo jooga magaalada Boosaaso waxa uu leeyahay waan soo dhaweynayaa Soomaaliya inay ka mid noqoto wadamada dalxiiska qaramada midoobay runtii haddii ay Soomaaliya ka mid noqoto dalxiiska waxa muuqata ifaalo ay rajo gelin karto dadka kale ee dalxiiska u imanaya Soomaaliya waa tahay dhageysta kale duwan dhageystaasi waxa uu yiri magaciigu waa Saxardiid Xaashi Ardaale oo jooga magaalada Boorama waxa uu leeyahay in ay Soomaaliya xubin ka noqotay hay'adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay waxba ma soo kordhinayso Soomaaliya waayo dalxiis iyo damaashaadba waxa ay ka horeeya sugidda ammaanka dalka sababtoo ah meesha ammaankeeda la isku haleyn karo ayaa loo dalxiis tagaa wax kasta waxa ka mudan inay mudnaanta siiso ammaanka gudaha dalka waxaan qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC ee Facebook dhageysta idinkuna raayigana waad ka soo dhiiban kartaan warbixinaha dhawaanta halkaasi ku daabacnay halkaad nagala socotaana waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba saacaduna haatan waxay tilmaamaysaa 7:11 warbixinada inoo soo socdana waxaa ka mid ah sheeko xiiso badan oo sheegaysa in wadanka Serbia haatan uu aqbalay arday gaaraysa 700 oo caruur kuwaasi oo ah dadka muhaajiriinta ama qaxootiga dalkaasi ku galay balse markan koox khubaro dhanka caafimaadka ayaa waxa ay sheegayaan inay suuragal tahay in jiil gudihii lagu soo yareyn karo kala duwanaanshaha dhanka caafimaadka ee u dhaxeeya Afrika iyo dunida inteeda kale warbixintan uu daabacay wargeyska caafimaadka ka faallooda ee Lancet ayay khubaradu ku sheegeen in caruurta da'da yar ay isbedel muhiim ah ku keeni doonaan daryeelka caafimaadka faafahinta warkan waxa inoo diyaariyay tiftiiraha BBC-da Africa Richard Hamilton waatan Farduusa Maxamed Cilmi oo soo jeedinaysa warbixintan ayaa maanta xilli dambe waxaa lagu soo bandhigi doonaa xarunta Afrika ee cilmi baarista caafimaadka iyo dadka ee magaalada Nairobi waxaana wadajir u qoray in ka badan 20 hogaamiye oo ka shaqeeya daryeelka caafimaadka oo ay kamid yihiin dadka siyaasadaha dejiya aqoon-yahano iyo ganacsato warbixintu waxa ay ka digaysaa in hanaanka caafimaadka aanan diiradda lagu saarin oo kaliya cisbitaalada iyo bukaanada balse sidoo kale diiradda la saaro talaabooyinka ka hortagga ah iyadoo la adeegsanayo xalka maxalliga tusaale ahaan waxa ay ka digaysaa warbixintu khatarta weyn ee ka imaanaysa cudurrada lala xiriiriyo tubaakada haddii dadka Afrika aysan ka faa'iideysan fursadda taariikhiga ah ee lagaga hortagayo cabista sigaarka ee baasan waxa ay warbixintu leedahay maadaama da'yarta qaaradda lagu wado in ay labalaabanto 450 milyan wixii loo gaaro sanadka 2050 ayaa dadka da'da yar waxa ay isbedel muhiim ah ku keeni doonaan habnololeedka dadka iyo caafimaadkaba warbixintu waxa ay sidoo kale ka digaysaa in haddii la dhimo maalgelinta caalamiga ah ay taasi horseedi karto inay sii xumaato inta badan xaaladda caafimaad ee dadka ugu saboolsan adduunka waxa ay warbixintu intaasi ku daraysaa in inta badan dalalka ka hooseeya saxaraha Afrika ay wax ka yar 3% dakhliga ka soo gala wax soo saarka gudaha ay u isticmaalaan caafimaadka taasi oo wax badan ka hooseysa bartilmaameedka horumarinta adduunka warbixintu waxa ay sidoo kale tilmaamaysaa in teknolojiyadda cusub ee mobilada ay kaalin muhiim ah ka dheeli karaan arintaasi sida barnaamijyo cusub oo mobilka lagu shubto oo lagu magacaabo MB Degree oo lagu sameeyay gudaha dalka Ghana oo loogu talagalay in lagu aqoonsado dawooyinka been abuurka ah aaday u mahadsantahay Farduusa Maxamed Cilmi oo inoo soo jeedinaysa warbixintii wariyaha BBC-da Richard Hamilton oo ah tiftiiraha BBC-da Afrika halkaad warbixinadaasi kala socotaana waa BBC ciyaarihii ayaa inoo soo socdo oo waliba xalay kooxdii Liverpool ahayd waa lagu dhigay waa koobka horyaalada Yurub balse markan waxaa maalintii labaad galay bandhiga buugaagta ee magaalada Muqdisho kaas oo la sheegay in lagu doonayo in lagu kobciyo qoraalka iyo akhrinta afka Soomaaliga bandhigan oo galay sanadkiisii saddexaad ayaa waxa uu sanadkan soo jiitay in ka badan 3,000 oo buug oo laga qoray dhammaan qaybaha nolosha buugaagta halkaas ee lagu soo bandhigayana waxa aad uga dhex muuqanaya haweenka Soomaaliyeed hadaba waxa goobta uu bandhigaasi ka socdo tagay oo warbixintan inooga diyaariyay wariyaha BBC-da magaalada Muqdisho Cali Nuur Salaad
muqdisho oo sanadkiiba mar ay muqdisho martigeliso. kumanaan ka kala yimid geyiga Soomaalida iyo qurbaha ayaa halkan ku kulmay si ay uga qayb qaataan carwada buugaagta Muqdisho. qorayaasha sanadkan buugaagta soo bandhigaya waxaa ku jira dumarkii ugu badnaa ee wax qora muddadii 3 sano ahayd ee uu bandhigan socday. Muna Diirshe waxa ay wax ka qortaa arrimaha haweenka. ilaa 3 buug oo ay qortay ayaa halkan lagu soo bandhigay. haddaba sidee ayay u aragtaa in haweenku ay wax qoraan? wax badan ay ka bedelaysaa maxaa yeelay gabadhu waa hooyo, waa walaal, waa xaas, waa wax walba, waa yacni udub dhaxaadkii oo bulshada, waa maclimad, waa daadaheeyihii oo nolosha, wax walba ayadaa hagaysa. haddii ayada ay wax qorto waxaa moodaa si saxa oo toosa inay u qaadanayso bulshada maadaama ay tahay macallinkii ummadda. ilaa 15 buug oo ay qoreen 11 haween Soomaali ah ayaa la soo bandhigay. waa tiro aad u yar marka la barbar dhigo ragga wax qora ee buugaagtooda halkan lagu soo bandhigay, balse waxa ay muhiimadoodu ku jirtaa mawduucyada ay ka hadlaan oo intooda badan ah kuwa taabanaya nolosha bulshada. sheekooyinka ka qaybgalayaasha soo jiitay waxaa ka mid ah buug soo koobaya sheeko ku saabsan guurka qabaa'ilka la haybsooco. waxaa qortay Fartuumo Kuusow oo degan dalka Kanada. buugan waxa way dhibaatada ku dhacday haweenkeena Soomaalida markii dagaalka u dhacay dagaalka ka horbo dhibaatada ku dhacday haweenkeena Soomaalida hadii gabar ay go'aansato inay guursato nin oo boon in gabar ninka ay guursatay waxa lagu fiirinayaa dadka boonta ee wixii ku dhacay markii wadanka dhibaato ay ku dhacday annagoo dhan ay nagu dhacday laakiin dadkii la dhihi jiray adal waa dadkii dhihi jiray boon waa dadkii masaakiinta ahaa naagihii dhib badan ku dhacay because adiga marka jaranjarada hoosteeda aad joogtid oo jaranjaradii ay kor ka soo dunto dhibkii u weynaa dhan adiga qabanqaabiyayaasha madashan waxa ay aaminsan yihiin in kororka tirada dumarka Soomaalida ah ee wax qora uu kaalin muuqato ka qaatay in la helo buugaag tiro badan oo ka hadla arrimaha bulshada. ka hadalka tahriibka iyo dhibaatooyinkiisa ayaan ka marnayn madal kasta oo ay Soomaalidu isugu timaado. Nasteexo Axmed waxa ay wax ku qortaa afka Carabiga, fadhigeeduna waa magaalada Qaahira. waxa ay soo bandhigtay buug la yiraahdo Buufis. buugga aan qoray waa sheeko faneed waxa uu ku qoran yahay afka Carabiga laakiin waxa uu magac daray eray Soomaali ah oo Buufis la yiraahdo oo erayada soo hadda ku soo kordhay burburkii kadib yimid ah. insha Allah buugga waxaad ku arki doontaan oo ka hadlaya dhibaatada adag ee qaxootiga la soo gudboonaata nolosha qurbaha oo kale ma oranayo waa wacyigelin laakiin qofkii akhrista asaga kala saari karaa dii wacyigelinta ahayn laakiin ujeedadayda ugu talagalay ah inay dadku ogaadaan dadka xaaladda buufiska uu ku dhaco sidii u egyihiin qaab nololeedkooda waxa la soo kulma in laga arko iyo in aan ku soo daray inaan caalamka carabta inaan tuso wadankeena oo sheeko faneedkaas u soo maraya ma dad burburkan weligood ku jiri jiraanahay mise dad leh taariikh iyo nolol wanaagsan iyo maalmo qurxoon soo qaatay. ka sokow soo bandhigidda buugaagta dhaqanka iyo ka doodista mawduucyada bulshada quseeya carwadu waxa ay fursad u tahay ganacsatada oo wax soo saarkooda bulshada kula wadaaga. Cali Nuur Salaad, BBC, Muqdisho. waa tahay cali aad buu mahadsan yahay halkaad warbixinada si kala socotaana waa BBC. ka qaybgal barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message telefoonka nambarkiisu yahay 4478620090 kadiba waxa ay kula tahay BBC Soomaali. saacaduna waxay tilmaamaysaa 7:20 daqiiqo warbixinada inoo soo socdana waxaa ka mid ah kulamadii hordhaca ahaa ee lagu golxaarayay shirweynaha 27aad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay faallo ku saabsan ayaad maqli doontaa balse markan ciyaarihii haddii aanu eegno xalay waxaa dhacay kulamo kale oo ka tirsan koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. kooxda Liverpool oo gurigeeda ku dheelaysay ayaanan ka faa'iideysan fursadii taageerayaashooda ay ugu qaylinayeen oo ciyaartoodii waxay ku soo dhamaatay 2-2 oo waxa ay isla dhaafi waayeen kooxda Sevilla. Maribo hal wax isla dhaafay kooxda Spartak Moscow. Feyenoord waxa gurigeeda ku dubatay oo 4-2 kaga adkaatay kooxda Manchester City halka Shakhtar Donetsk ay 2-1 kaga adkaatay Napoli. Besiktasna waxa ay 3-1 kaga adkaatay Porto oo gurigeeda joogtay halka Lisbon iyo waliba kooxdan la yiraahdo Monaco ay ku soo dhamaatay ciyaartoodii 1-1.
Real Madrid se waxay 3-0 kaga adkaatay kooxda Abiol iyadoo ciyaaryahan Cristiano Ronaldo uu dhaliyay 2 gool oo kamid ah goolashaasi iyadoo goolashaasna ay noqonayaan goolashii 106 iyo 107 ee uu ka dhaliyo koobka horyaalada Yurub. waa tahay Tottenham si guul muhiim ay gaartay kadib markay 3-0 kaga adkaatay kooxda Borussia Dortmund. caawase waxaa lagu wadaa in Yurub uu ka furmo tartanka Europa League ay ku dheelaan oo ay ka qayb qaataan kooxaha kale ee aan ka qayb gelin koobka horyaalada Yurub iyo UEFA Champions League. kooxaha waaweyn ee tartankaasi sanadkan ka qayb qaadanayana waxaa kamid ah kooxaha AC Milan, Real Madrid, kooxdan la yiraahdo Arsenal iyo waliba Villarreal. Austin, Vienna iyo AC Milan ay wada ciyaari doonaan halka Villarreal iyo Astana ay wada ballansan yihiin. Arsenalna waxa ay la dheeli doontaa kooxda Cologne halka Everton ay wada ballansan yihiin kooxda Atlanta. ciyaari hadii aanu halkaasi kaga gudubsnase markan aanu aadno dhanka iyo wadanka Mareykanka. magaalada New York ee wadankaasi ayaa waxaa ka bilowday kulamada hordhaca ee lagu gol leeyahay ee lagu gol xaarayo shirweynaha 72 ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo lagu wado inuu furmo 19 bishan. arrimaha ugu waaweyn ee lagu wado inay madaxdu ka wada hadlaan ayaa waxaa kamid ah kala duwanaanshaha bii'ada, tamarta, maamulka, horumarka la joogteeyo ee kaymaha iyo yareynta qiiqa hawada lagu sii daayo isbedelka cimilada. haddaba si aan wax badan umuurtan uga ogaano ayaa waxaanu wareysanay Axmed Xirsi oo ka faallooda arrimaha caalamka. waxa uu waramay waryahayaga Mareykanka Maxamed Xaaji Xuseen Shiine. run ahaantii horta Mareykanka siyaasadiisu waa isbedeshay sida hadda la socotid sanadkan markii uu qaatay madaxweynaha cusub Donald Trump. Mareykanku markasta wuxuu door weyn buu ka ciyaari jiray isbedelka cimilada waxayna ahaayeen wadamada kaliya u ololeeya in ay wax weyn ka qabtaan. hadda waxaa meesha yimid nin madaxweyne cusub oo aan khibrad u lahayn oo ka yimid baamushtari u ahaa. marka run ahaantii ma fahansana laakiin xisbiga dimuqraadiga oo kaleeto iyo dadka badan oo shacabka ah oo Mareykanka aad ay u danaynayaan sababtoo hadda wixii ka dhacay Florida waa arkaysay Irma, wixii ka dhacay Houston waa arkaysay oo ayadana dabaylo iyo duufaan isla socdo. marka waxaas oo dhan waxay ka yimaadaan isbedelka cimilada. marka waxaan u malayn doonaa markuu dhageysto adduunka oo dhan sida ay arrintan u danaynayaan inuu isbedelo oo uu ka noqdo hormood ayaan rajaynaynaa insha Allah taala. isbedelka cimilada oo kale dadka Soomaalidu ma oga laakiin dadka Soomaalida aad bay u saameysaa bal ka waran. run ahaantii haddii cimilada si fiican u sii baartid dhibaatada ugu weyn adduunka marka la fiiriyo Soomaaliya qayb weyn ayay maaragtay ay ka tahay oo dhibaato weyn ba gaarayso sababtoo anaga ma nihin developed nation ma nihin dad isku diyaarin karo emergency capacity la ma nihin meelaha aan kaga naalno adduunkana waa qaarad dheer oo badba maaragtay badankeena aan xignaa. marka run ahaantii Soomaalida waa inay arrintaas ka fiiriyaan oo xataa dadka imaan doono delegationka Soomaaliya ka socda oo prime ministerku uu hogaaminayo saan rajaynayo khayre in ay u ololeeyaan ay yiraahdaan arrintan hana la ka caawiyo iyo dad khibrad u leh in la geeyo Soomaaliya si looga hortago duufaanta iyo dabaysha soo socota. waxa kale oo yaani cimilada Soomaaliya aad ugu saameysa abaaraha dhulkiyo intuu qalalo maaragtay biyihii ka maqan yihiin waxyaabo weyn markii la fiiriyo dhinaca Soomaaliya oo kaleeto ayay anaga nagu soo aadan tahay. marka waxaan oo dhan wax isla socdo marka tiraada cimiladan ka hadlaya waxay dhahaan waa one package. marka run ahaantii waxaan rajaynayaa inuu prime minister ka hor u soo kaxeeyo dad ku shaqo leh ereydaaseeto oo maaragtay kala hadla adduunka sida anaga noo saameyn doonto hadduu ilaa yiraahdo. arrinta kale aadka loo hadalhayo in lagu soo qaado golaha loo dhan yahay qaramada midoobeyna suurtagalka arrinta North Korea iyo nuclear-ka weeyaan cunaqabatayn baa la saaraya. cunaqabatayntan iyagana ooga sii daraya wuxuu arkeen dagaal qarsoon oo lagu wado arrinta ka waran sidee looga hadlayaa. run ahaantii weli waxaad moodaa Mareykanka weliba hadda maamulka cusub hadda haysta in aysan fahmin siyaasadda ka dambayso North Korea iyo waxa ay wado. cunaqabatayn North Korea kuma shaqayso oo hadda cunaqabatayn ku shaqaynayso mar hore cunaqabatayn lagu sameeyay tan waxa ka hoos kala wado oo run ahaantii yaani hormood u ah China iyo Russia oo ayaga u arko Mareykanka threat. marka North Korea waa iska leeyahay laakiin hawlo waaweyn baa hoos ka socdo oo dadkana caawinayo oo cunaqabatayn kasto lagu qabto China ayay waxay la sameynayaan trade oo meeshii joogo oo wixii kala wado sida uu Mareykanku u hadlayna run ahaantii China ma jecla oo maaragtay inay awood intay isticmaalaan ay yiraahdaan hadii waxaan qabanin waxaan ku dhaqaaqaynaa. marka xaaladda hadda way isbedeli doontaa hadii aan loo bedelin wada hadal oo aan Mareykanka yaani bootadaan aan duusa joojinin waxba ma suurtagali doonaa. marka arrin sahlan ma hadada arrin sahlan ma aha run ahaantii waa Mareykanka oo dhan iyo adduunka caalamkiisaba waa la fiirinayaa waa inay daqiiqad kasto dhici karaa second kasto dhici karaa dagaalka. arrinta kale ee aadka loo hadalhayo waxaa kamid ah wadanka Burma dadka qaxootiga ee Rohingya la yiraahdo ee ka qaxaya gabadhiina way iman weyday shirka ma soo qayb galaysaa leeyahay bal ka waran.
dadkaas ilaahay horta waxaan ilaaha u gargaaro dhibaato weyn oo xag jira ayaa lagu hayaa oo maaragtay adduunkana weli indhaha way ka daboosheen oo maysa fiirin qofta waddankaas matasha ama aad loo yaqaano islaantii waxa weeye waa qof Nobel Peace Prize ku raayay waxayna meeshan u imaan weysay waxay ogtahay in lagu mudaaharaadi doono marka ajendooyinka waxaan rajaynaynaa inay ka hadlaan wadamo badan oo Turkiga ay ka mid tahay iyo wadamo badan oo Muslim ah Pakistan oo kale iyo inay soo hadal qaadaan oo miiska ay soo saaraan si looga gaaro go'aan looga gaaro degdeg ah axmed xirsi oo ka faallooda arrimaha caalamka ayuu kaasi ahaa uu waramayay wariyahayaga maraykanka maxamed xaaji xuseen shiine warbixintaas iyo warbixinada kaleba waxaad ka daalacan kartaan barteena internetka ee bbcsomali.com sidoo kale facebook iyaga ayaad ra'yigeena kaga soo dhiiban kartaan inagoo isku dayi doona hadba ciddii ayna u suura gashay inaanu ra'yigooda soo qaadano balse markan waxaa markii ugu horreysay iskuullada dalka serbiya iska diiwaangeliyay ilaa iyo 700 oo ah caruurta qaxootiga ah iyo kuwa magangelya doonka ah ee doonaya waxbarashada asaasiga walow ay dhallaankaasi wajahayaan caqabad dhanka luqadda mas-uuliyiinta maxalliga ayaa isku dayaya in ay martigeliyaan dhallaankaasi hase yeeshee qaar ka mid a waalidiinta serbiya ayaanan ku faraxsanayn in caruurtooda ay dhex galaan caruurta soo galootiga haddaba warbixin umuurtaasi ku saabsan oo BBC da ay diyaarisay waxaa inoo hayaa cabdinaasir saxan saxo duleedka caasimada serbiya ee belgrade caruurta qaxootiga iyo dadka magangelya doonka ayaa waxa ay bilaabeen inay iskuulaadka u kala cararaan oo ay waxbarashada ku dadaalaan qaar badan oo ka mid ah waxa ay ka soo qaxeen dagaalada iyo cadaadiska ka jira dalalka Ciraaq iyo Afghanistan dadka magangelya doonka iyo qaxootiga ayaa waxa ay doonayaan inay dib u bilaabaan waxbarashadooda Shucayb Nazaari oo 12 jir ah ayaa ka mid ah caruurta waxbarashadooda bilowday waxaana ugu horeeyay ee caqabadaha ku ah ayaa ah dhibaatada ka haysata xagga luqadda isaga iyo 7 xubnood oo qoyskiisa ka mid ah ayaa waxa hoy u ah xarun dadka magangelya doonka loogu talagalay oo ku taala Serbiya waxa ay sheegeen inay Kabuul ka soo qaxeen 2 sano ka hor iyaga oo cabsi ka qabay kooxda Taliban toddobaad walba waxa aan qaadanaa 4 xiisadood oo ah luqadda Serbiya aad ayaan ugu mashquulsanahay waxa sidoo kale jira saaxiibo badan oo iskuulka aan isku naqaano دیگه خوبه دوست خیلی زیاده 47 iskuul oo ku yaala Serbiya ayaa iminka qaabilaya oo diiwaan gelinaya caruurta la midka ah Shucayb balse dadkani meel waliba oo Serbiya ka mid ah ma ahan kuwa laga soo dhaweynayo magaalada Adasefi oo ku taal xuduudda Croatia boqolaal qof ayaa saxiixay codsi ay ku sheegayaan in aysan ku faraxsanayn in caruurtooda ay dhaxgalaan caruurta magangelya doonka ah Soran Odnajanovic ayaa ka cabanaya in isdhaxgal aysan sameyn karin caruurta reer Serbiya iyo dadka magangelya doonka ah caruurtu ma aha kuwa u diyaara waalidiinta sidoo kale ma aha kuwa u diyaarsan deegaanka ayaa sidoo kale u diyaarsanayn waxaan u malaynayaa in ay tahay arrin dhibaato abuuri karta dhanka dhaqankeena iyo dhaqankooda ma aha mid isku mid ah ni mentalitet taj i ovaj ku dhawaad 18 bilood ka hor waxaa la xiray xuduudda dhanka waqooyi oo marin u ahayd dadka magangelya doonka ee wadamada Balkans ka soo galaya Sonja Taskovic waxa ay ka tirsan tahay xarunta xuquuqul insaanka ee magaalada Belgrade waxa ayna sheegtay in qaxootiga ay ku go'doonsan yihiin xuduudaha dhammaantood waxay jeclaan lahaayeen inay safarkooda sii wataan balse suurtagal ma aha sababtoo ah xadka Hungary iyo Croatia aad bay u adag tahay in la gudbo marka aan dhahno waxay ku xayiran yihiin Serbiya muddo dheer dalka Hungary oo dalkan iyo Serbiya xuduud la leh ayaa ogolaanaya oo kaliya in toddobaadkii ay soo galaan 50 qof taasi oo ku qasabtay in kumanaan qof oo magangelya doon ah inay iska degaan gobolka Balkanska halkaasi oo isku dayayaan inay nolol cusub ka bilowdaan oo ay waxbarashada ka mid tahay aad ayuu mahadsan yahay cabdinaasir saxan soxo warbixintaasi nala socodsiinayay warbixintaasina waxay gabagaba u tahay barnaamijkii saaka ay soo saartay Farduuso Maxamed Cilmi anigoo Cabdi Ibraahim Caga in la socodsiinayay Jeef Sawkan oo inoo farsameynayay cidii u dhaafay wax dib uga daalan kartaa barteena internetka bbcsomali.com hadaba waxaynu ballanaa labada duhurnimo hadduu eebadmo inta ka horeysa sidaas iyo nabadgelyo